kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka magaalada Dhuusamareeb amniga oo la adkeeyay iyo madasha xisbiyada qaran oo war culus ka soo saaray dagaalka gudoonka labada aqal oo ka daray iyo Cabdi Xaashi oo jawaab soo saaray wada hadalada dawladda federaalka iyo Somaliland ee Djibouti oo baaqday iyo sababta fadeexad haraysay dawladda federaalka iyo shirkad dhaqaale badan ku leh oo xiratay xarun ay leedahay dawladda federaalka oo howlo muhiim ay ka socotay iyo xildhibaano ku shiray magaalada Muqdisho oo shaaciyay in balanta uga baxay madaxweyne Farmaajo iyo sir culus oo ay fashiliyeen intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud isagoo soo gabagabeeyay safaro uu ku marayay deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud dib ugu laabashada madaxweyne Qoorqoor ee Dhuusamareeb ayaa la xiriirta diyaar garowga shirka maalinta Khamiista ka bixi doona ka dhici doona magaaladaasi kaas oo isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada wararkii ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in qabanqaabada soo dhaweynta madaxda maamul goboleedyada ee magaaladaasi ay ka socoto ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana lagu arkayaa magaalada ciidamo booliis iyo kuwa nabad sugid ah oo ammaanka si aad ah u adkeynaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada Dhuusamareeb halkaas oo shirka uu ka furmayo shirkan ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo waliba masiirka ummadda Soomaaliyeed waxaana laga sugayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo lagu jiheynayo dalka 2020-2021 waxaa fashil uu ku soo dhamaaday shir uu isugu yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kaas oo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho 5 ilaa 8 bishan July kaas oo markaasi ay ka madax adeegeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland dhinaca kalena waxaa ka sii daraya dagaal siyaasadeed u dhaxeeya aqalka sare iyo gudoonka sare ee golaha shacabka kadib markii la soo saaray warqad difaacaysa kaalinta mugale oo ay aqalka sare ku leeyihiin ansixinta sharciyada aqalka sare ayaa waxa ay sharci dara u arkeen warqadii uu gudoomiyaha golaha shacabka u diray wasaaradda dastuurka ee ku saabsanaa qaraarka matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare warqadaasi ka timid gudoonka sare ee golaha shacabka waxay aqalka sare ku tilmaameen mid xadgudub ku ah habraaca xeerdejinta dalka ee ku qeexan cutubka 6aad madaxa 4aad ee dastuurka ku meel gaarka waxaa intaasi dheer in aqalka sare ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen 4 xeer ee qabyatirka u ahaa sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal hadiiba aan la waafajin habraaca xeerdejinta dalka sidaasi daraadeed waxa ay ugu baaqeen guddiga doorashooyinka inta laga saxaya inaysan xeerkaasi u isticmaali karin doorashada qaranka warqadda ay soo saareen aqalka sare waxaa ku xusan soo jeedin ku socota gudoonka golaha shacabka kaas oo ku saabsan in sharciyada matalaadda gobolka Banaadir ay u baahan tahay in loo dhameystiro habraaca dastuurka ugu dambeyntii aqalka sare waxay soo jeediyeen in la aqriyo qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka iyo 12aad ee sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal geesa kalena wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ee bishan ka furmayay dalka Djibouti ayaa gabi ahaanba baaqday sida ay warbaahinta ogaatay gudiyada farsamo ee labada dhinac oo ku balansanaa kulamo lagu sii ambaqaadi lahaa wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa gabi ahaanba baaqday xilli loo balansanaa inay dib u furmaan bilowga toddobaadkan guddigaasi ayaa ku balansanaa in kulankooda u horeeyo uu dhaco maalinta Sabtida ee toddobaadkan taas oo ku beegnay 15 maalin kadib maalintii la soo afmeeray wajigii koowaad ee wada hadalada labada dhinac ee kulanka Farmaajo iyo waliba Muuse Biixi sida ay ogaatay shabakada wararka kulanka guddigaasi ee wada hadalada labada dhinac ayaa u baaqday xiisad cusub oo ka dhex qarxay labada dhinac midaas oo daba socota heshiis ay gashay Somaliland oo ku socota inay tahay dal madax bannaan xiisad siyaasadeed oo ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Somaliland ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay kulankii maalintii Sabtida loo balansanaa inkastoo si rasmi ah loo shaacin sababaha baajiye kulankaasi Somaliland iyo Soomaaliya ayaa wax war ah ka soo saareen kulankaasi baaqday oo qayb ka ah si ambaqaadida wada hadalada labada dhinac iyo xilliga dib loo balamay dhinaca kalena warar lagu kalsoon yahay oo heshay warbaahinta ayaa sheegaya in maamulka shirkadda Bima oo qaadatay qandaraaska dhismaha xarunta degmada Yaaqshiid ay xiratay xarunta degmada oo dhawaan xariga laga jaray
maamulka shirkadda oo ay ka maqan tahay lacag dhan $320,000 ayaa ganjeelka bannaanka ee degmada ku xirtay qunful waxaana ay sheegeen inaysan cidna geli karin ilaa laga siiyo lacagta ka maqan. Qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta degmada ayaa sheegay in saaki albaabada ay ka laabteen guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. Sidoo kale dhammaan shaqaalaha iyo saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka ee degmada ayaa ka laabtay albaabka kadib markii laga furi diiday. Xarunta degmada Yaaqshiid ayaa waxaa xariga laga jaray maalmo ka hor kadib markii dayactir lagu sameeyey, waxaana xariga ka jaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Arrintan ayaa noqotay mid aad looga hadalhayo gudaha magaalada Muqdisho saacadihii ugu dambeeyey ee maanta. Sidoo kalena arrintan ayaa ceeb iyo fadeexad ku ah dowladda hoose ee Xamar. Senator Iftiin Xasan Baaso oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay inay ka baxday heshiisyadii ka soo baxay kulankii internetka ku dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya oo ka baxay dhammaan heshiisyadii lagu gaaray shirkaasi isla markaana ay sababtay inuu baaqdo shirkii golaha amniga qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ku eedeeyay inuusan waxba ka fulin qodobadii uu ballan qaaday isla markaana uu ku hoolan yahay howlgalo kala fogeena. Waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland oo uu ka soo jeedo ay ka qaybgeli doonaan shirka maamul goboleedyada ee 9 bishan ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb. Iftiin ayaa nasiib daro iyo fashil ku tilmaamay in madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka maqan yihiin shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kalena madasha xisbiyada qaran ayaa soo dhaweeyay shirka maamul goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ee looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo inay ka xun yihiin in dowladda ay ka maqan tahay shirkaasi. Sidoo kale waxay warmurtiyeed ay soo saareen ku sheegeen inay ka xun yihiin baaqashadii kulankii 5 Luulyo ay yeelan lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah federaalka kaas oo tilmaameen inay caddeyn u tahay fashilka ay hoggaanka sare ee dalka ku sugan yihiin. Madasha ayaa sidoo kale muujiyay inay ka xun yihiin in madaxda dowladda ay ka maqnaadaan shirkaasi taas oo aan muujinin ifafaalo wanaagsan sida ay sheegeen. Madasha xisbiyada qaran wax wanaagsan uma arkaan in madaxda dowladda dhexe ay ka maqnaadaan shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb. Waxaana ay madaxda dowladda kula dardaarmeen inay u istaagaan gudashada waajibaadka ka saaran howlaha dastuuriga ayaa lagu yiri qoraalka. Madasha waxay dhiirigelinaysaa dadaal walba oo keeni kara isku soo dhawaansho iyo garawshiyo maangal ah, ayuu intaasi ku daray qoraal warmurtiyeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran. madaxweynaha Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare wafdiga ballaaran oo la socda wasiirada xildhibaanada dhammaan xubnaha wafdiga ka mid ah waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow dowlad goboleedka la dhihi karo Hirshabelle iyo Galmudug waa hal dowlad goboleed ama isku mid ku soo dhawow oo ku faraxsanahay waan kaaga mahadcelinaynaa inaad noo soo hormartay wafdigii koobaad oo halkan madashii ama ballantii ay ku lahaayeen dowladaha xubnaha ka hayeen warshiga iyo kulankii halkan uga ballansanaa kaasoo ku qotomay ama sarka ku hayay in halkan uu ka dhaco kulan looga sii tashanayo maslaxad iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed kaasoo aan jecelnahay dhinacyada oo dhan inay ka soo qayb galaan. madaxweyne aadan runtii ugu faraxsanahay aniga waftigeygu muxuu ahay martiqaadka aad noo fidiseen ka soo qayb galka sida aan ku nimid iyo aan ku ilaa iyo xaq mataqaana Hirshabelle oo dhan ay soo guurtay ilaa iyo hadda la soo daba socdo waxay ka turjumaysaa kalgacaylka iyo wanaagga aan u qabno dowlad goboleedka Galmudug iyo fadhigan iyo rajada aan ka qabno inay ka soo baxaan ummadda Soomaaliyeed qalbigooda iyo dhagahooda ay ku diirsadaan oo adiga iyo shacabka reer Galmudug ay karaamo ugu noqoto waxa mataqaana falxad Ilaahay ugu furay oo lagu heshiiyay oo mugdiga ku baxay kulankii Dhuusamareeb in Ilaahay mataqaana uu noo qadaro ayaan rajaynaynaa
run ahaantii aadan anigu ugu faraxsanahay socodkaygu galmudug waa ku badnaa aadan ugu faraxsanahay inaan imaado maalinba meel bay soo joogtay maanta meesha ay joogto aad baan runtii qalbigayga ugu diirsaday nabadoonaynta odaytinimada tanaasulka socodka dhageysiga ragga aad isu keentay ood ku qancisay mid walba inuu danihiisa iyo mustaqbalkiisa galmudug wax ku yeesho oo galmudug wax ku darsado inay ka aqbalaan oo ku qancaan waxay ka turjumaysaa hogaamintaada wax mataqaana la moog yahay ma wax la qarina maaha mudane madaxweyne hoosaan u tashadoonaa wasiirada tashadoona tiimamka tashadoona aadan runtii kuugu bogaadinayaa wixii ka qabsoomay galmudug adiga iyo tiimkaaga gudoomiyaha baarlamaanka sida aad maaragtay hawsha aad ku wadaan ugu dambeyntiina booliiska Turkiga ayaa waxa uu xiray 276 muhaajiriin oo ay ku jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed sida uu ku dhawaaqay taliska guud ee ciidamada ilaalada xeebaha wadankaasi 8 shakhsi oo isku dayay inay dadkani qaab tahriib ay kaga saaraan Turkiga ayaa gacanta lagu dhigay qabashadooda waxay timid markii ay markabkooda nooca xamuulka ku soo xirtay xeebta Aegean sida ay xusayaan warbaahinta muhaajiriinta ayaa ka soo kala jeeda wadamada kala ah Syria, Iran, Afghanistan, Bangladesh iyo Soomaaliya wakaalada wararka u faafisa Turkiga Anadolu ayaa warisay in howlgalkani lagu qabtay shakhsiyaadkan oo maalmihii la soo dhaafay Socday sawirro laga soo qaaday goobta lagu qabtay markabka ay la socdeen dadkani ayaa muujinaya ciidamada oo wada xiran afsaab ama maaskaro Turkiga ayaa sanadihii la soo dhaafay qaabilay boqolaal qaxooti Soomaaliyeed kana soo cararay wadamada sababa la xiriira colaad iyo shakhsi la'aan Turkiga ayaa sanadihii la soo dhaafay qaabilay boqolaal soo galooti ah kana soo cararay wadamadooda sababa la xiriira colaad iyo shaqo la'aan badankoodana waa Suuriyaan waxaana ay la kulmeen soo dhaweyn diiran sababta Turkiga ka dhigtay marinka qaxootiga waa inuu xuduud la wadaaga Greek halkaas oo uga sii gudbaan qaaradda Yurub oo la kacaa ku faysa siday u joojin lahayd qulqulka qaxootiga oo COVID-19 oo hoos u dhigay guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkeena halkan soo gelino